بسم الله الرحمن الرحيم أمني وحكومتي عقبضاء وين دلكن وجهيو وحال isku day in badan in xoog la saaro amniga dhinaciisa farsamada laakiin aragtida wada jir wada tashi waxay ku dhisan tahay in xoog la saaro siyaasadda amniga oo ah dadka Soomaaliyeed ama hogaankooda siyaasadeed ay ka heshiyaan ciidanka ay yeelanayaan numberkiisa tiradiisa shaqada uu qabanayo iyo sida loo xaqiijin karo ciidanku inuu siyaasadda banaanka ka joogo waxaa raacaya sida loola tacaalayo kooxaha argixisada oo ah caqabadaha ugu waaweyn ee dalkeena haysta maalin kasta dad Soomaaliyeed ay ku dilaan si macna darro ah si arxan la'aan ah si diinta islaamka aan waafaqsanayn dhaqanka Soomaaliyeed sida loo hortagi kara waxay tahay in aan isweydiino maxaa ku bixiyay argagixisada dhalinyaradaas inay galaan kooxaha argixisada waxaa jira argagixisada kuwa ideolojiyo iyo afkaar qaldan ay u geysay argagixisanimada waxaa jira kuwa ay u geysay tabasho ama hurgumooyin ay qabaan waxaa jira kuwa ay u geysay opportunity ama inay fursad ka helaan oo ay ku noolaadaan waxaa jira kuwa ay u geysay in ay ku xukun iyo amar taagleyn ay ka helaan waxaan u baahanahay hay'adaheena sirdoonka inay ka shaqeeyaan sidii ay u soo dharaadhiri lahaayeen una fahmi lahaayeen dadka ku biira age numberkooda kooxaha ay yihiin deegaanada ay u badan yihiin sababta ay ugu biirayaan waxaas oo dhan u baahan in la darso markaasna la yimaado istiraatiijiyadii lagu wajihi lahaa oo ah bulshada wada jirta inay ka hortagaan kooxahaas argixisada dadka aan la dagaalayna argixisada ma aha conventional ama dad taqliidi ama aha ma naqaano ciidankooda iyo hubka ay haystaan iyo meesha ay joogaan waa dad bulshada ku dhex jira saas daraadeed waxaan u baahanahay inaan helno wax la yiraahdo community intelligence ama sirdoonka bulshada ay bulshadu kalsooni ku qabto inay dawladda aamini karto in u soo tabi karto abaabulka iyo shirqoolada ay wadaan kooxaha argixisada taas ayaa u baahan in bulshada kalsooni la geliyo ay dawladda kala shaqeeyaan sida kooxahaas wax looga qaban lahaa lana kala qaado siday u kala qaybsan yihiin oo koox walba sideeda loola tacaalo la abaabulo dadka culimada waxgaradka bulshada rayidka aqoon-yahanka warbaahinta sidii looga hortagi lahaa halista kooxahaas ayaga ah si wajahan oo midaysan looga hortago waxay u baahan tahay marka hoggaan kari kara inuu intaas abaabulo fikirkeeda haya kulana xisaabtami kara xukuumaddiisa inuu arintaas ka dhanaan dhiriyo waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi